waan qarinayaa sheegi maayo maanta oo hadalla xunxun oo aan shacbiga Somaliland dhigahooda iyo qabaa'ilka Soomaalida midna ku wanaagsanayn miidiyaha geliyay dad badinana ay moodayaan magaca uu sitay iyo meesha uu fadhiyo inuu nin weyn oo magacan uu sito kala leh waxaan horta qabiiladan uu sii deynayo irir iyo uu sheegayo halkan way dhaaftay Somaliland baa la yiraahdaa wixii kala gaaray dadkana waqti 30 sanadood ka horreeyay baa laga heshiiyay golahan maanta ka caytan ayuu daarood ka caayiyo uu leeyahay wayna dileen waxa shubayo golaha anaga ugu badan daaroodka laftiisa ayaa ugu badan marka qof xishoonayana maaha qof xayadii ka tagtay weeye wax laga heshiiyay qabaa'il isdilayna ma jirin daarood dawlad institution buu ahaa kuwa maanta joogaana kuwa qabaa'il maaha halkanna qolo isaaq la yiraahdo oo dawladan lihima jirta ee dad baa la Somaliland la yiraahdo wax guurtu ay ku hadasho maaha wax uu cid ku metelaya ama golo ku metelaya maaha wax qabiil isaaq la yiraahdo ku metelaya maaha wuxuu habar jecel ku metelaya maaha wax Umar reerka la yiraahdo uu ka soo jeedo ku metelaya maaha waa qof aan aqligiisa iyo da'diisu aanay isu dhigmin waxaasoo kalena waxaan idinka waaninayaa qoladiina miidiyaha inaan sii deyn Soomaaliyana qolad hawiye la yiraahdo ma haysato dad badan baa degan Soomaalida Itoobiya inuu wada leenahay Kenya la wada leeyahay tanaynu wada leenahay Djibouti baynu wada leenahay shanta Soomaaliyeed meel reer leeyahay ma jirto meel walba cid waa u badanaysa laakiin intuu halkaa isla soo taago qabiil daarood la yiraahdo laayay in ummadda dhagahooda maqashiyo waa wax edeb daradii adduunka ugu xumayd ee dhacda waxaan uu kala hadlayaa in aan miidiyihiinu golaha iyaga waad aragteen maalin walba markuu kaco Saleebaan wuxuu ku sameeyo waa aragteen anigana maanta sharaf dhac bay ugu tahay inaan shaar u jawaabo laakiin way ka fursan weeyay waayo dadka badan ee dibadda jooga iyo waxay komitiyada waxay ka qorayaan marka waxaan leeyahay anigana weydinka ay kalifeen inaan kufkayga ahayn inaan la hadlay ugu kalifay annaguna wuxuu sheegay manhid dal Somaliland la yiraahdo baanu nahay reero badan baanu nahay boorame oo ciise leh oo gadabiirsi leh oo dhulbahante leh oo warsangeli leh oo sagaal reero leh oo isaaq noogu badan yahay cid halkan qolo u sheegata ma jirto dadka dalka wada leh ee wax samaystay baanu nahay kala gurka uu inaga kala gurayaana waxa weeye kuwa kale inuu ka farxiyo doonaya aqligiisuna kuma fila marka ha u qaadanina magaca uu sito iyo mansabka uu fadhiya inuu milgeedii leeyahay waa qof xun oo ku cilcilinaya waxaan ku soo ururinayaa anigoo inaan u jawaabo aan jeclayn oo marka Somaliland gudaheeda war mashaar baad u jawaabtay lagu oranayo Pretoria haddana waxaan dadka dibadda ka hadlaya waxa uu ku hadlayaa inay wax macno leeyihiin qolada san dejinaya maanta waxaan ma jiraan iska daayay ninka moodisaan ma aad baa u mahadsantahay